maayarka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko ayaa agabka ciyaaraha oo dhammaystiran ku wareejiyay mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland. Wareejinta deeqdan agabka ciyaaraha oo ka dhacday xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland ayaa waxaa halkaasi goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Barasabka gobolka Muruudsheex maayar ku-xigeenka Barasab ku-xigeenka xogayaha fulinta dowladda hoose mas'uuliyiin kala duwan waxaana halkaas ka hadlay duqa caasimadda Hargeysa Barasabka gobolka Muruudsheex iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland maadaama ay tagtakii ciyaaruhu inoo soo xidhmayaan iyadoo markii hore ay ka shaqaynayeen degmo waliba sideeda ay uga shaqaynaysay oo lagu mahadnaqayo gudoomiyayaasha degmooyinka caasimadda gudoomiye waliba kooxdiisa iyo taageeradiisa iyo wixii ay kooxdiisu u baahneed u waday labadii kooxood ee isugu soo hadhay oo ah degmada Ibrahim Koodbuur iyo degmada Axmed Dhagax oo finalkiisu ku imanaya iyadoo xalayna wasiir kula dardaarmay halka haddaan dawlad hoose ahaan nahay wasiir halka waxa ku jira iyo gudoomiye qalabkii oo dhan oo dhammaystiran waxa laaliyo wixii agab ay ku qurux badnaanayeen shacbiga caasimadan waxaan leeyahay taageero hufan maanta beritoolaha loo kala noqdo jimcaha rabshadi ma jirto waxa weeye ciyaartu walaaltinimo iyo isdhexgalka ummadda dhalisa iyana buuq dhalin ciyaartooygana waxaan leeyahay si fiican wada ciyaara waan uga mahadnaqayaa maayarka caasimadda labadan tiim ee isugu soo baxay ciyaarta kaba dambaysta ah ee degmooyinka caasimadda Hargeysa oo berito jimcaha hadii alla idmo ciyaaraya ciyaar walaaltinimo agabkan runtii ay u baahnaayeen oo maayarku uu ku wareejinayo isuduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha baritana maxaan ku dhahdaa ciyaarta la ciyaarayo tiimamkana xalata aynu kula ballanay in niyad wanaag iyo ciyaartooynimo ay soo bandhigaan dadweynaha taageerayaasha ah ee labada degmana aanay ciyaarta xumaynin dhanka kale duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko ayaa ku soo gabagabeeyay xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa barnaamij loogu magac daray daafurka toddobaadka iyo higsiga caasimadda Hargeysa barnaamijkan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan aqoon-yahanka kala duwan ee degmooyinka magaalada Hargeysa iyo sidoo kale qaar ka mid ah carruurta degmooyinkaasi ayaa lagu lafuguriyay isla markaana laga wada tashanayay caynka ay Hargeysa u eekan karto 20 sano ee soo socda barnaamijkan waa mid aad u qiimo badan ayaa halkaasi waxa ardayda casharo la xiriira horumarka iyo sidoo kale kobcinta garaadka wanaagsan ku siinayay qaar ka mid ah hay'adaha wada shaqaynta ay leeyihiin dowladda hoose ee magaalada Hargeysa barnaamijkan oo qayb ka ahaa maamul daadajinta la doonayo in caasimadda horumarkeeda laga wada tashado ayaa duqa caasimadda Hargeysa barnaamijkan soo abaabulay waxa uu halkaasi ku kormeeray qaabka wanaagsan ee dhalinyaradaasi u soo gudbiyeen fikradooda ku saabsan Hargeysada la doonayo nooca uu eekan karto waxaana dhalinyaradu soo jeediyeen toolooyin fara badan isagoo maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko ku amaanay taa qashinka oo kale imka qashinka qoyan oo kale imka mashruuca biyaha ayay ku jirtaa waa iyo public toilets badan oo ka dhisi doono meelaha suuqyada haddii la yiraahdo 10 sanana 20 sanana ugu talagalayna kolba qaybin la sii sameeyo kun ahaantii soo jeedintii ee warshadaha in soonin laga dhigo aad baad u mahadsan tahay waxaan doonayaa inaan su'aalka weydiiyo ma xagga dabaysha yaad ka hadashay waxa lagu talagalay warshadaha inaan laba soon ka dhigno waqooyi bari Hargeysa iyo koonfur bari labadaas oo ah masallaha oo dhinaca bariya iyo naasaab la hoostooda soo sax ma la wadaagayo aad baad u mahadsantahay halkan waxa lagu soo bandhigay qorshe aad u wanaagsan golaha deegaankaanu geyn doonaa qorshe loo bedeli doonaa deedna action baa loo bedeli doonaa wixii ay dhalinyarta aad u weeyo codsatayna waa hawlaha ugu sii fudud kuwaasi waxay noqon doonaan wax qorshaha labada sano degdeg aanu sameeyno insha Allah ta'ala laga filiyo Cabdiqaadir Codi Hoon Cable TV Hargeysa